مسؤولين سرسرة oo ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta ayaa beeniyay warar ay baahiyeen warbaahinta Israa'iil oo sheegaya in xukuumadda Abu Dhabi ay qayb ka ahayd duqeyn dhanka cirka ah oo lala beegsaday warshad sifaysa biyaha badda oo ku taal gudaha dalka Iran. Warar rasmi oo ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa lagu cadeeyay in dalka uu ku jiro xaalad isdifaac si uu uga falceliyo weerarada kaga imaanaya Iran balse aysan marnaba doonayn in xukuumaddooda lagu soo jeedo colaado cusub ama xiisad sii horta. Bayaankan ayaa daba socday kadib markii dhowr hay'adood oo ka tirsan warbaahinta Israa'iil kuwaas oo soo xiganaya ilo qariyay magacyadooda ay tabiyeen in Imaaraadku ka dambeeyay weerarka lagu qaaday xarunta sifaynta biyaha ee Iran. wasiirka amuraha dibadda ee Iran Abbas ayaa sabtidii sheegay in diyaaradaha Mareykanku ay duqeeyeen warshadan oo ku taala jasiiradda Qashim ee ku dhex taala marinka Hormuz taasoo gabi ahaanba goysay biyihii nadiifta ahaa ee cabayeen dadka ku nool ilaa 30 tuulo. Mareykanka iyo Israa'iil labaduba way beeniyeen inay fuliyeen weerarkan. Mas'uuliyiinta Imaaraadka Carabta ayaa durba jawaab kulul ka bixiyay eedeymahan markii ay soo baxeen. Dr. Ali Rashid oo ka tirsan golaha qaranka ee Imaaraadka ahna gudoomiyaha guddiga arrimaha difaaca ayaa bartiisa eegas ku tilmaamay wararkan kuwa been abuur ah. Wuxuu intaas raaciyay marka aan tallaabo qaadno waxaan leenahay geesinimada aan ku shaacino. Abu Dhabi ayaa haatan ku dhibtoonaysa inay fahanto dabeecadda Israa'iil iyo nooca warbixinada marin habaabinta ee ay baahinayaan.